warbixinteena waxaan ku eegaynaa dalka Imaaraadka Carabta. Magaciisa waxaa la yiraahdaa United Arab Emirates. waa wadan ku yaala bariga dhexe ee Khaliijka Carabta. waxa uu xuduud la leeyahay dalka Sacuudi Arabiya iyo Cumaan, halka dhinaca kalena uu badda ku leeyahay. sidoo kale dalka Iiraan ayuu dalkani xuduud la leeyahay. dalkan Imaaraadka Carabtu waxa uu ka kooban yahay 7 imaaradood ama kuwa ugu waaweyn ee aynu magac dhabi karno ay ka mid yihiin Abu Dhabi, caasimadda dalka Imaaraadka Carabta, Dubai, Siraaj, Ajman. kuwaas ayaa ka mid ah 7 imaaradood ee dalka Imaaraadka Carabta. taariikhii hore Imaaraadka Carabtu waxa uu ahaa meel ay deganayeen beeraley, xoolo dhaqato, kalluumaysato. waxa sidoo kale caan ku ahaa dhulkan Imaaraadka Carabtu ganacsiga luulka. qarnigii 19aad boqortooyada Ingiriiska ayaa la saxeexday heshiis Imaaraadkii hore kaas oo la oran jiray Truckle State, taasoo Imaaraadka Carabta ka dhigtay dhul hoos yimaada ilaalada boqortooyadii Ingiriiska ee xilligaasi. Imaaraadku waxay mideeyeen awoodoodii iyagoo dhisay wadanka Imaaraadka Carabta oo uu xilligaasi hogaaminayay Sheikh Sayid bin Suldaan Al Nahyi oo noqday madaxweynihii u horeeyay oo yeesho dalka Imaaraadka Carabtu. dhaqaalaha Imaaraadka Carabtu inta badan waxa uu ku xiran yahay kaydka saliidda iyo gaaska, taas oo dhaqaalaha dalkaasi kor u qaaday ganacsiga iyo maalgashiga. Dubai waxay noqotay xarun caalami ah oo ganacsi iyo dalxiis, halka Abu Dhabi ay tahay xarunta saliidda iyo awoodda siyaasadeed ee soo jiidashada dalalka waaweyn ee saameynta ku leh adduunyada. magaalada Dubai ayaa leh xarumo dalxiis oo cajiib ah sida Burj Khalifa, dabiqii ugu dheeraa dunida, iyo xarumo ganacsi oo waaweyn. Imaaraadka Carabtu waxa uu saameyn diblomaasiyad ku leeyahay caalamka iminka la joogo, wuxuuna xiriir weyn la leeyahay dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo dalal badan oo qaaradda Afrika dhaca. Imaaraadka Carabta waa dal si xawli ah u horumaraya, isagoo ka soo gudbay noloshii dhaqameedka una gudbay nolosha casriga ee adduunyada iminka la joogo. waxaa lagu yaqaanaa maalgashiyo waaweyn oo uu ka sameeyo meelo badan oo adduunka ka mid ah, horumarinta dhismayaasha, siyaasad furfuran oo ganacsigiisa wax badan u tartay.